ciidamadan oo ka tirsan ururka lixaad ee guutada 17aad ee Gorgor ee Commandoska Soomaaliya oo lagu soo tababaray dalka Turkiga ayaa dalka ku soo laabtay galabta. ciidamadan waxaa keentay diyaarad laga leeyahay dalka Turkiga oo ah nooca cirka ama Air Force-ka loo yaqaano, waxaana soo dhaweeyay wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka lugta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. taliyaha ciidamada lugta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Tahliil Biixi oo ka hadlay soo dhaweynta ciidamada tababarka soo dhameystay ayaa sheegay in ay ciidamada ka qayb gali doonaan sugidda amniga. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Soomaaliya ha noolaato. Soomaaliya ha noolaato. ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ha noolaado. Gorgor ha noolaadeen. Gorgor ha noolaadeen. dawladda Turkiga oo walaalaha ha noolaato. waxa adinkuna aad baad u faraxsan tihiin, annaguna waa faraxsanahay. adinku waxaad ku faraxsan tihiin waddankiinii baad ku soo laabateen adinkoo wax u soo bartay. waddankiinii baad ku soo laabateen adinkoo caafimaad qaba. waddankiinii iyo dadkiinii baad u soo laabateen adinkoo u hiloobay. annaguna waxaan ku faraxsanahay ciidankii aan dirsanay oo wax noo soo bartay oo tababar qaba in ilaahay nabad noogu soo celiyey. labada farxadood oo kulmay guul Soomaaliya guul. wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Xaaji oo la hadlayay ciidamadan ee tababarka soo dhameystay ee galabta lagu soo celiyay dalka ayaa u mahad celiyay walaalaha Turkiga, waxaana uu kula dardaarmay in ciidamadan ay ka qayb qaataan nabadgelyo soo celinta dalka. waxaa mahad weyn aan u dirayaa walaalaheena Turkiga, dawladooda iyo shacabkaba oo tababarka idin soo siiyey. haddana maanta ay diyaar u tihiin inaad ku soo laabataan dalkiina. waxaan aaminsanahay tababarka la idin soo siiyey inuu yahay tababar aad iyo aad u wanaagsan, in idinkana aad tababari doontaan ciidamo fara badan oo dalka joogo. tababarkaas iyo diyaargarowgaasna dhali doono in dalkeena amnigiisa, difaacigiisa iyo ilaalinta xorriyadda dalkeena iyo midnimadiisa inaad sugi doontaan. waa la aaminsan yahay dad dhallinyaradan Gorgor oo ku soo tababartay inay ka duwan yihiin ciidamada kale. tababarkay soo haleen iyo fursada ay haleen daraaddooda waxaan rabnaa insha Allahu inaad dadaashaan qarankiina aad u taaganaataan. Soomaaliya ayaa helaysay tababaro ciidan oo dibadda ah sanadihii u dambeeyay, iyadoo Turkiga uu ballan qaaday tababarka ciidamada qalabka sida kuwaasoo isugu jira noocyada kala gedisan ee ciidamada dalka. ciidamadan ayaa sidoo kale ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ee tababarka dibadaha dalka ku soo qaatay. hase yeeshee waxaa ciidamadan laga dhursugayaa in ay ka qayb qaataan sugidda amniga ee caasimadda Soomaaliya. Maxamed Nuur Maxamed Abuukar, warbaahinta qaranka, garoonka Aadan Cadde, Muqdisho.